raadka iyo musiibada macsiyada iyo dembigu ku leeyahay qofka iyo ummadaba ama dalkiiyo dadkaba. ayaamahan u dambeeyay waxaa aada loo celcelinayaa oo warbaahinta inagu wareeriyey inuu gaaladii waalay oo nafta u keenay virus yaroo ilima qabataya oo la yidhaha corona, oo ka soo bilaabmay nimanka mulxidiinta ah ee aan ilaahay rumaysnayn subxaanahu wa tacaala China. fayraskaa yar ee ilaahay iyaga uu ku salliday waxaynu odhan karaynaa waa abaalmarin ilaahay uu ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala. gaalnimada ay sameeyeen aanay ilaahayba rumaysnayn iyo iyagoo cadaabay oo ciqaabay ummadda kooban ee muslimka ku dhex nool. caalamka meelaha ugu dhib badan ee muslimka lagu dhibaateeyo ayay China ku jirtaa. nimanka idhaa xorriyad baanu ka hadalnaa iyo dimuqraadiyada, gaaladuna reer galbeedkuna way barakeeyaan. wax ka hadlaya arki maysid. xijaabkaa lagu haystaa, salaadaa lagu haystaa, inay jinsiyad yeeshaan baa lagu haystaa, ee dalkaba ka mid noqdaan, wax diina inay yeeshaan. xeriyay ku xaraysan yihiin, ummado dhan baa xerya ku xaraysan oo maxaabiis muslimnimada ay leeyihiin daraaddeed. jawaabtii maxay noqotay? inuu iyagiina ilaahay xero ku xareeyey. xeradii ay muslimka ku xareeyeen jawaabteedii waxay noqotay iyagii baa ilaahay xero ku xareeyey. si dhaqsa aynu arkaynaba, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, ilaahay colkiisa isagun baa yaqaana. kullu haadihi lmawjuudaati junuudun lahu, waxalla waxaan caalamka ka jiraa waa colkii ilaahay. qoladu dooruu ilaahay soo istaaraya, mid la arkaya mid aan la arkaynba. waxaa maalin dhoweydoon dheerayn intaanu cudurkaasi bilaabmin uu ku faanayay ninka China ka madaxi awoodda uu leeyahay. awoodda China adduunkan cidi isma hortaagi kartaba, weligoodba ha wadaan. ta dhaqaale weliba, dhaqaalaha ayaa weliba sii calaamadinayaa annaga hagayna buuhi adduunyada. haddana waxaa dhacday in loogu yaro gabaday dhaqaalihiisii oo dabeedna la sii buunbuuniyey bahalkan. arrin dhaweyd taqriir uu soo saaray qaybta dawaariga ama emergency-ga nin dictor ahoo jooga sacuudiga oo muslin ah, Aramco meeshan la yidhaha shidaalka ee sacuudiga, buunbuunis baa ku jira buui bahalka. China lagaga faa'iidaysanaya wey macnaheedu. oo qaar badan oo ka dil badnaabaa, ka dhimasho badnaabaa jiray. 10% ama 10% meelahaasaa ku dhinta baa la yidhi. laakiin haddana waa laga sii faa'iidaysanayaa, ila gaaladu iyana way sayaaneen. taasina waa arrin saddexaad. gaalnimadiisa, muslimkuu dhibay, kibirkiiyo xoog uu sheegtay. in yar baa lagu kala yaacay oo dadkii joogayba waynaga safri la, dadkeenniina way soo bixi lahayn, kuwii halkana safarkii waa laga hakaray. jawaabaha ilaahay uu bixinaya subxaanahu wa tacaala dhaqsaha ayaynu arkaynaa ee u jawaabaya kuwa cadowga ah. waxaa qur-aanka iyo xadiidkuba ayna barayaan mar kasta oo dadku dembiga ay badsadaan in ciqaabta alla badanayso. dembiga noocyadiisa kala duwan mid waliba jawaab buu leeyahy. maxaad ilaahay kula yaabaysaad kaga hor iman kartaa? waxaynu ogsoonnahay dadka madaxda maamula, cidda ka tala qaadata ee u jajaban ee u heelan, mansab iyo maalba way u huraan. midkaasi waa innagaba yidhaha, waa taageerayaasheenna. kursigana ha la siiyo, lacagtana ha la siiyo, ha la ixtiraamo ayay idhahdaan. waa addoon yaroo indhala mid oo ammaano haya ayaa sidaa u dhaqmaya. maxaad u maraysa ilaahay weynaa iska keen lahaa subxaana wa tacaala? walilaahi almathalu laclaa. ilaahay baa tilmaanta u weyne u wanaagsan leh. addoonku abuuray ee u arsaaqay ee imkaaniyaad iyo arrimo wanaagsan uu isugu hagaajiyey oo edab daradan kala hor yimi oo yidhi maba jirtidba, mana awoodid, imanaad siinin. oo nicmadii ilaahay diiday oo dafiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hor yimid dhoola tuso. maxaad u malaynaysa in markaa waxyaabo badan adduunka lagu tuso wuu istaahilaa, iyadoo weliba ilaahay naxariistiisa ballaadhan ee uu doonayo inuu fursad siiyo uu markaa si uu u soo noqdo.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عذاب كوين آخرين تان لقارب ولهاي كوير يربان كده ياك دad kan adduunyada ku nool waliba si aanu halaagamahay waa si ay u soo noqdaan bulay idan marka waxa aynu arkayna ku dhacaya waa dubay karbaash ilaahay uu ku dhufanayo gaalka kibray karbaash weey nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoogu sheegay xadiid saxiix ah oo asxaabtu ay nooga soo warinayaan ridwaanullaahi calayhim waxa cuduradan adduunyada dhacaya inay yihiin ciqaab ilaahay oo caasinimada kaga jawaabaya dadku ay caasi noqdeen wuxuu nabigu yiri yaa macshara almuhaajiriin khamsun idha ibtulitum bihinna wa a'uudhu billahi an tudrikuhun asxaabtii muhaajiriinta buu ku halqabsaday oo nabigu waxa yiri shan arrimood marka la idinku salido ilaahay baa ka magan galay inuu idinku salidee waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda ta horeysa waxa la yiraahdo faaxishadu qolo kuma dhex faafto oo ma muujistaan illa fasha fihim ad-da'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw faaxishadu waa sinada iyo dadku iswaxeeyay iyagoo wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo oo dadkiiba ka xishoon waayeen haday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku salidaa uu ka mid yahay daacuun iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cudur ay imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii inagana wayna soo gaaray markaasaa daayartii qaar waxay gaadheen inay yidhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelata anaaba kugu qaadan oo dee odayaashii umaan soo diri doonaayo ku qaatuunbaa la odhan uurkan inantan uurayseen waa dhaqankeenii soo maaha xumaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidlo ah wiil iyo gabadh baa ka soo boodaya haddii la isdul taago marka cudurrada aidisku ka mid yahaan hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka edabta daran ku abaalmarinaya siduu rasuulku cadaynayo xigmaawi ilaahay noo soo diray arinta labaad walam yanqusu almikyaala walmiisaan ilaa ukhiduu bisidiin wa shiddati alma'uuna wa jawri sultaani calayhim dadku hadday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaartu ay noqdaan qaar bila ammaano ah oo toodu unay u daran tahay oon tu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku salidaa abaara buu nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaq dabool oo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale waar kii hore kana kii horaaba dhaamay kan bal aan ku celino doorashada bal inaynu ka soo rayno way ka sii dartay waa ilaahay baa daba socda dadka subxaanahu wa tacaala ilaa alla wuxuu yidhi inna rabbaka labil mirshaad ilaahay dadka dhabagal buu ugu jiraa iyagu iskama arkayaane isagu uu eegayaa kuurku ugu jiraa isagaa raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubaha uu la dhacay dhibka ku ah ee u talinaya waa shaar iyaga loo tolay iyo waxay kasbadeen arinta saddexaad waxa weeye haday sakada bixin waayaan municu alqatra min as-samaa ilaahayna roobkiisu ka hakiya oo ka joojiya hadii aanay xoolaha mayeedhadu jirin ee aan dambi lahayna looma bashubeen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam arinta afraad waxa weeye walam yanqudu ahd Allah wa ahd rasuulihi illa sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim فأخذوا بعد ما في أيديهم هدي أي دتكاس بلنك إلهي رسولك الجبيان وينقضان وعلى اللقبيال كي مدحني بين بوشيغيا كي تاجر كي بين بوشيغيا كو كاستو بلشدا كميدي شرعي إلهي يوحي بلن لغا قادي مفلينيو ينيسو مفلينيا إلهينا ومفلينيا رسولك ومفلينيا بلن الآن dadku meel loogu soo hagaaga male
arrintaasi haddii ay dhacdana cadow baa ilaahay uu ku sallidaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka faramaroojiya waxaanay ilaahay iyo rasuulka u seegeen ayuu sida ka faramaroojinaya arrinta shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum a'imatun bikitaabi illaahi wayatakhayaruu mima anzala allahu ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum hadday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxyiga ilaahay u soo dejiyo oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan ilaahay wuxuu ku sallidaa cuqubo uga dhigaa dhexdoodu isku sallidaa qabaa'ilkii baa isdilaya kooxii baa isdilaya dowladii yaryaraha xadka lahaa jaarkii baa isdilaya shakhsiyaadkii saaxiibadii dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaana la garan waayey ayaa meesha ka soo baxaysa laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyigu ku jiraa lishariicati samaaxa shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajina leh iyo ilaahay isku soo dhaweeyo dadka marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa marka dadkan kala firdhee faraaraha lana sababtaas ugu caan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiix ibn maajah baa wariyay raximahullah idan marka arrintaa waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceen aada uga muuqanayso mid shisheeyada intaynaan u gudbin sixidda la saxana waxaynu ku heli karaynaa uun barwaaqada iyo badhaadhaha uu nebi maxamed sheegay sala allahu calayhi wasalam waxaa isweydiin leh dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya cudurradan iyo duruufahan iyo waxaan faraha badani dee gaalun kuma dhacaan caasi oo keliya kuma dhacaan laakiin dad badan oo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliye ah oo saalixiin ahoo maati ahoo dembiba gelin oo maxaa iyagana xaggee laga raacay iyana xaggee ka qodax qaateen xaggee laga helay waxaa jirta bani aadamka waxa ku dhaca adduunyada waa laba qaybood qayb waa cuqubo waa qofka caasiga ah cuqubo la marinayo qaybina waa ibtilaa imtixaan weeye ilaahay addoomaha u imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dembigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku hadhay darajana ilaahay ugu dallacaa marka dadkaa xumi wixii ay sameeyeen haddii duulduul ka soo gaadho ama iyagaba musiibadii wada gaadho ilaahay baa ku darajaynaya xadiid saxiixa oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim ku sugan waxaa warinaysa xaaskiisii zaynab bintu jaxsh ayaa nebigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka ummaddan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo su-aal ba weydiisay saxaabiyadii waxay tihi yaa rasuula allahi anhlaku aw anahliku wa fiina saalixuun oo miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadkii wanaagsanaaba nagu jiraan dad badan oo fiican ee ummaddu mar walba xumaan iskuma raacdo rasuulku waxa uu sala allahu calayhi wasalam nacam idaa kahura alkhabath ha waa la iskiin raacinayaa marka dad xunku uu bato khabadkaasi haddii dad lagu macneeyo weeye la khabiidka waxa xunna waa la idhaa camalka xun dadka xunna waa la idhaa haddii dadka xumi bato ama xumaantuma ay badato intan kalena imtixaan baa looga dhigayaao waa la iswada raacinayaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya buu ilahay yidhi balaayo kuwa sameeyo qura aan ku egaanayn waxaynu ogsoonnaho waxaynu barayaa taata ka soo horjeedo ah inaynu daacada ilaahay badinno oo diinta ilaahay aynu heellanna oo ilaahay aynu ka amar qaadanayno inaynu wanaag adduunyo iyo wanaag aakhiraba ku helayno waan low istaqaamuu calaa dariiqati la asqaynaahum maaan gadaqa dadku hadday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadkuba kama kala go-een baa ilahay walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard cir iyo dhulba barakooyinkiiyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddooman lahaayeen subxaanahu watacaala una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badin lahaayeen xalku waxa weeye walaalayaal waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicin aynu isu ammaano maahee xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxaa dhiba jira xalku waxa weye ina ilaahay toobadkeena subxaanahu watacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa ummadda iimaan kalea ilaahay u yeedho wuxuu leeyahy iimaanba a iska lahaateen oo ashahaadatenbe haddana dembigii waa badan yahay ilaahay u toobad keena toobadana shardi baa ku xidhane toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiinna markaa uu idinka dhaafi aa gasheen wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar
jannooyin qiimo badan oo biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malabka ayaa ilaahay idin siin doonaa. waxa intaasi raaco walaalayaal dee waxani waa waxa adduunyada ku faafayo dadkeenii ka yimid baaba iman kara oo dee aynu ka qaadi karnaa. marka talada dhakhaatiirteenu ay bixinayaanna waxa weeye ugu horreynba dhowrkan arrimood ama shantan arrimood ta koobaad waa tii ilaahay uuna faray ta koobaad oo ah nadaafadda inaynu ku dadaalo. ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badan ee qalbiga nadiifiya, xaggooda hoosay nadiifiyaan, nadaafadda dushana way jecel yihiin oo dahaaraday ku dadaalaan, deegaankooda, dharkooda, jidhkooda, intaba. sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa weysada. wamaa adraaka ma alwuduu, weysada maxaad ka taqaanaa? nebigu inagu waaniyey sala allahu calayhi wasalam in la cusboonaysiiyo, weysada cusboonaysiintiisa. salaad walba in loo weysaysto, adigoo iska weyse qaba inaad weysaysato. xubnaha laga weysaysanayo macnaha marka laga hadlayo weysada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeya lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay weysadu. oo waxaynu arkaynaa 4 meelood ama 5 meelood ee boodhka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa. labada gacmood, labada cagood iyo kurtii la madaxii la meydhay, wejigii la meydhay, sankii, afkii, dhegihii, wixii oo dhan kurtay ku yaalaan. intaasaa aynu had iyo jeer boodhka iyo wixii soo duulaya iyo wax alla wixii imanaya oo dhan intaasay naga marayaan. intii baa lagu yidhi 5 jeer ama ka badan markaa sunno weysaysa, dee sunno tukanaysana ugu yaraan faradkii 5 jeer weysaysa baa lagu yidhi haddaad weysadii cusboonaysiinayso. nebiguna saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam. intuu salaadaha isku weyse qabi jiru weyse qab ku tukan jiray may badnayn, kaana yujadidu alwuduu, weysada u cusboonaysiin jiray. marka arrintaasina cilmiyan waa mid la soo taabtay hadda inay qayb weyn ka hortaga shayga la yidhaahdo cudurrada qayb weyn ka tahay weysadu. taas waa midda labaad, marka aynu had iyo jeer qofku dee uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaan yara afka lagu nadiifiyo saftiga, ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo. waanu ina baray nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. midkiin hadduu candhuuf tufaya buuhi maradiisa ha ku tufo, waxaaga isu qab, adiga ha kugu egaadaan, dad kale ha gaadhsiin. marka taasi macnaheedu waxa weye haddaad masaajidka joogto iska tufi, daaqadda ha ka tufine ku egow oo marada iyo saftiga iyabaad ku tufaysa. sidoo kale waxyaabaha aadka u muhiimkaa waxaa ka mid a markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonnaba inaynu wax cunno inaynu faraxalanno. nebiyullaahi maxamed baa inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam. fariin caafimaad casrigan ha laga dhigo, laakiin rasuulkaaba inoogu horreeyey oo aynu kaga dayanaynaa. markuu xamaamka ka soo baxo muxuu samayn jiray nebigu? ciidduu faraha gelin jiray, gacanta ku istijooday, gacantiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam, oon balaayo iyo bakteriya lahayn, haddana si ummadda tusaale u noqdo. ciid istarala ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa, markaasuu ku xoqaya. waxyaabaha wax lagu dilana dee ciiddaa ugu mudan, sida dee loo yidhiba ayga nijaastiisii ciidda ha lagu maydho. marka ciidda iyo biyuhu gacantaa ku maydhaya. marka wixii aad hesho caruurta in la baro, oo ehelka la baro, oo jaariyadaha la baro, oo shaqaalaha la baro, cudurrada wareegoo dhan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo. ilaahay baa ilaaliye. waxaa ka mid a nadaafadda ay ka mid tahay gacmahoo la ilaaliyo. qofka meelaha had iyo jeer xamaamada iyo waa inay yaallaan wax lagu nadiifiyaa, saabuunta, shaambooga, waxyaabahan qaalica ahe jara cudurrada wareega. taasina aad bay muhiim u tahay. iyo qofku marka uu had iyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho, iyana aad bay muhiim u tahay. waxaa ka mid a qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu isleeyahay gacanta waxbay soo qaata ama nadiif maaha, inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelihii manaafidahayd daldaloolay, ila waa wada xasaasi dhulkaas, in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo. waxaa intaasi raacan uu qofku hadduu dee isdareemo inuu xanuunsanayo, wax walba uu noqon karaa xanuunku, kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsaa ula xidhiidho. 5 arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeennuna uu inoo sheegay, waana lagu talinaya had iyo jeer. mar walbana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj, waxaa la yidhaahdo ka hortagga oo islaamkeennu ina farayo wuu ka fiican yahay ka dabatag oo ah
shayga la yidhaahda istaaweynta xataa karantiimayntii baa sharcigeenu ina farayo nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu noo jideeyey meel haddii daacuun ka dhacabu inta ku jirtaanayay ka bixin cid dabadda ka soo gashaanayay jirin waa ilaahay ayaa wax walba socodsiiya haddana asbaabta iyo dadaalku waa lagama maarmaan iyadoo ilaahay aynu ku kalsoonnahay qadarkiisa haddana iska ilaalintaasina waa qadarkiisa nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah arrimahana waynu baraarujin lahayn allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaabah اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسماعنا وأبداننا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة